barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Xaaji Nuur Sugaal Geelle ayaa ammaan u soo jeediyay qurba joogta gobolka Salel ee ku nool daafaha caalamka. barasaab ku-xigeenka gobolka oo aan waraysi kula yeeshay xafiiskiisa anigoo socdaal hawleed ku joogay magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa waxa uu ka warramay hawlo badan oo ku saabsan gobolka Salel. Cabdiraxmaan Nuur Sugaal ayaa ugu horeyn u mahad celiyay jaaliyadaha gobolka Salel ee ku nool daafaha caalamka gaar ahaan waxa uu si gaar ah ugu mahad celiyay urur weynaha Hudoon, ururka gargaar walaalaha Sweden iyo kuwa kale kuwaas oo gobolka Salel ka geystay adeegyo bulsho iyo gurmad bini'aadanimo sanadkii u dambeeyay. waxaanu si gaar ah u xusay adeegyada ay ka geysteen gobolka Salel isbitaalka weyn ee Ugaas Mustafa General Hospital ee magaalada Xariirad kaas oo ay qurba joogtu ku guuleysatay in ay ka dhigaan isbitaal leh dhammaan adeeg bixintii caafimaad sida dhismayaasha gaadiidka caafimaadka qalab caafimaad biyo iyo koronto joogto ah. bismillahir rahmaanir rahiim. marka koobaad ilaahay baa mahadleh anigoo ah Cabdiraxmaan Xaaji Nuur Sugaal ahna barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal waxaan marka koobaad u mahad celinayaa ilaahay mar labaad waxaan mahad celinayaa Amsar Cawaale oo ninkayga tugay ah. waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan qurba joogka gobolka Salel qurba jooggaas oo ku tallaabsaday waxtar faa'iido leh oo u faa'iido leh dadweynaha ku nool gobolka Salel. haddaan taabto Hudoon jooga la yidhaahdo ee dhisay dhakhtarka Xariirad lagax dhigayna dhakhtarka Gaarsaar wuxuu u qabtay dadka wax weyn sheyada ugu daran ee dadka noloshooda waxa weeye biyaha waxbarashada iyo caafimaadka. waxaan leeyahay qurba joogta dhammaantood waxay mareen wadadii wanaagsaneed wadada wanaagsan oo ah in dadkooda wax loo qabto. waxaan aad iyo aad uga amaanayaa waxqabadka ay sameeyeen. sidoo kale barasaab ku-xigeenku ku ammaanay qurba joogta gobolka Salel kor u qaadida tayada waxbarasho ee gobolka Salel. furitaanka iskuulka Xariirad oo ah halbilooyin iyagoo sameeyey iskuulkii secondary-ga inay furaan u sameeyaan masalan oo kale qolada iskuulka furtay ma hadda la magacaabaya qolada iskuulan ee u sameynaysa biyaha iyo solarka sameeyay biyaha iyo solarka oo ah muhiimadii oo iskuulku ku socon lahaa waana mahad aad u celinayaa. waxaan kaloo mahad celinayaa ururka gurmad oo isagana qaybo libaaxye ka qaatay shaqada gobolka Salel. waxaan leeyahay qurba joogga ku nool daafaha dunida ee u dhashay gobolka Salel waad shaqeynaysaa waana fiicantii waxaan sii jecelahay inaad intaa ka shaqeysaa. haddaan tusaale soo qaato gobolka Salel wuxuu ku qodan yahay laba shay milixda iyo kalluunka. waxaan nagu kordhin lahaa ama aan nagu dardaari lahaa inaad ka qayb qaadataan sida dadka milixda dib loogu dejin lahaa iyo sida dadka kalluumaysato looga dhigi lahaa ee iskaashatooyin intay samaystaan loogu soo iibin lahaa raashash. waxaan leeyahay tallaabo horle ayaad qaateen tallaabo fiican baad qaateen waayo gobol kasta oo ka mid ah Somaliland waxaa dhista qurba joogtooda mar haddaad tallaabada qaateen. waxaan kaloo mahad ballaaran inuu celinayaa qolada Cabdulqaadir ka dhex xigtay jaamacadda waa waxay naga maqnaan jaamacaddu waxbarashaduna waa iftiinka nolosha iftiinkii nolosha ayaad ka bilowdeen gobolkii Salel. waxyaalo badan oo daboola ayaad wax ka qabateen. waxaan leeyahay allah inala jiro isku duubnaada sidaana wuxuu wadaa. geesta kale waxa uu barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal baaq nabadeed u diray beelaha deegaanka Cabdulqaadir ee dhawaan shaqaqadu dhex martay. waxaan kaloo baaq u dirayaa labada beelood ee isku haya beer Cabdulqaadir beerta agteeda. waxaan leeyahay dagaal wiil baa ku dhinta nabadna wiil baa ku dhashay. dagaala way soo mareen dadkani dagaal sokay waana dagaal sokay waa inay yaabtiin waxa ka soo baxay. waxaan leeyahay ha laga soo daatago xanaaqa faraha badan iyo carooyinka faraha badan ha loo yimaado xalka yaani ku dhigan halkaa wiil ama in dhibaato ku gaar ama lagu kala qaxay. waxaan leeyahay
xumaantii dagaalka soqeeyo waynu aragneen samaha lagu dadaalo labada beelood waxaan leehay samaha lagu dadaalo caqlilayaashii iyo odayadiina waxaan leehay ku daya samaha maanta waxaan u baahannahay horumar looma baahna istiidmo iyo beeryar inay dadku dhintaan waxaan leeyahay labada beeloodba nabad ha ku dayaan wixii dhex yaaleen odayay lahaayeen odayadooda ayagaan dowladduna kama gacan maaso way soo galaysaa marka waxaan leeyahay nabad ha lagu dayaa ugu dambeyntii waxa uu barasaab ku-xigeenka gobolka awdal cabdiraxmaan xaaji nuur sugaal ka warramay deeq buugaagta la akhrista ee dugsiyada sare ah oo uu gaadhsiiyey dugsiga sare ee aadan bile ee magaalada xariirad isla markaana uu tiro buugaag ah geyni doono dugsiga sare ee Sacaadadiin Secondary School ee magaalada Sayla hay'ad life la yiraahdo ayaa soo dirtay buug waxay ku soo hagaajisay hay'adda hirda la yiraahdo waxa loo qaybiyay 19 secondary oo ku yaala gobolka awdal kuma jirin dugsiga sare xariirad kolkaan arrintaa helay waxaan u tagay hay'adda hirda waxaan uga qaaday iyaguna si fiican ay tixgeliyeen una mahad celinaya 15 kartoon oo buugaga dugsiga sare waa soo kala science la dhigi karo library-yada science maths English physics oo aad u anfacaya ardayda secondary-da dhigata kuwii kale Somaliland iyaguna xisaska Somaliland kuwana waan qaadaya waxaan helo waxaan u dhiibaya wariye cawaale iyadoo wax badan la ballan qaaday in la siiyo service-kii wadanka dhexdiisa waan jeclahay inaan u dadaalo dadkayga because of horumarka iyo noloshu waxay ku jirtaa horta waa nabadda marka laga soo gudbana waa in qofka helo caafimaad waa in qofka helo meel wax ka dhigto waa in qofka helo biyo marka iftiinada ka soo baxay gobolka Sanaag waxaan jeclahay in wixii aan u qaban karo haday dhakhtar ka tahay haday tahay maxay ahayd iskuulada haday biyaha tahay wixii aan ka qaban karo inaan iska hubtaagin mar walba inaan hado voluntary u diyaar ah dadkooda inuu cabdiraxmaan xaaji nuur sugaal waxa uu kamid yahay siyaasiyiinta ugu fadalada cadcad ee ku abtirsada gobolada Salal iyo Awdal maxamed cawaale daahir xariirad.net magaalada Boorama